puntland waxaan u baaqayaa somaliland waxaanu iyo wadnaa nabad iyo walaaltinimo iyo inaynu xasilooni ku wadnaa waxaanu rajaynaynaa inaanu khilaafka dhexdeeda ka dhicin waxaynu doonaynaa inaynu noqdo laba dal oo aysan furan oo si walba oo ganacsi leh oo dhaqan leh oo aqoon leh isu hogaansada madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa sheegay in haatan ay diyaar u yihiin inay sii daayaan maxaabiis oo sheegay in puntland ay uga qabsadeen dagaalkii ku dhex maray deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool si lamidana puntland uu ka rajaynayo in tallaabadaas ay la qaataan una sii daayaan maxaabiista ay hayaan oo sheegay inaysan xaq u lahayn in xabsiga lagu sii hayo waxaan diyaar u nahay oo nabadda iyo walaal ka bilaabaynaa caawa waxaan doonayaa inaan u ilaaliyo inaanu diyaar u nahay inaan sii dayno maxaabiistii lagu soo xiray dagaalkii Tukaraq ee halkan ku xidhan iyaguna ay soo wareejiyaan wixii ay naga hayaan waxay nala tahay inay xabsi ku jiraan inaanay waajib ahayn sidaa darteed waxaan codsanayaa iyaguna inay diyaariyaan waxay hayaan aynu hay-adihii ku shaqada lahaa ee hore inooga dhexaynayaan arrintaas ay ahayd inaynu arrintaa dhamayno xaggeena waa ka diyaar idinkana taasaanu idinka filaynaa taasoo noqonaysa tallaabadii u horreysay ee nabadda iyo soo waashaaynu ka helaya